السلام عليكم. كنت وعنا وناسين ملك استوى عالم كجوكتان. موضوعا كوبل وحن كهذا دونا صدق سيابات ودبيعية وتسوي دوين كرتو حاربنا اللي يقانو بضحنوكا يا سندي الدنبي وعن نقطي عقبات سوف صارتي تطبطنا الصومالية tan oo keentay in qofku ku jahwareero siyaabaha uu isaga daweyn lahaa isagoo mararka qaarkood door bida dawooyinka kiimikada ka samaysan balse mawduuca waxaan ka hadli doonaa saddex hab oo dabiici ah oo qofka hoos ugu dhigi karo ama isaga daweyn karo xaaladda loo yaqaano madax xanuunka headache intaan bilaabo mawduuca aan ka codsanayaa inaad noo saarto filow sidoo kale dabsare profilka linka saaran youtube-kana inaad noo saarto subscribe aan bilaawna mawduuceena waxa uu yahay habka koowaad ee loo daweeyo madax xanuunka ee dabiiciga waxa uu yahay qofku inuu cabo biyaha badan ayaa la ogaaday in halka tahay waxa loo yaqaan fuuqbaxa ama dehydration taasoo ka dhigan in qofku marka biyuhu jirkiisa ka baxaan ay keeni karto xaalad aad u daran taasoo sababi karta madax xanuun zaid ah. Labaad waxay tahay qofku inuu galo nasasho sidoo kale inuu seexdo hurdo kooban taasoo u dhaxaysa 20 ilaa 30 daqiiqo ama sidoo kaleba in qofku iska nasto taasoo ka dhigan inuu qofku helayo xasiloonida oo deganaan marka laga hadlayo maskaxdiisa. Tan ugu dambeysa waxay tahay qofku inuu saaro برف أما سوق اللي بيديرن إذا وحنون كأقدر إني كارهانا مركل الله هذا يبيها ديرن قفوا عصاري كراسي سوق له مرغيضة أما سوق له إذا حنون كأقدر إني يجرك ساعة تاني كل ضبي وكم سند وشدي إني